صدح سهرة waxay sheegtay qayb saddexaad inay tahay lugtaag war lugtaag maxaa waay marka af Soomaaliga isticmaashay aad buu xeel dheeriya laakiin waxaan rabnaa anagu inaan ka faa'iideysano daraasadaas oo lugtaag waxay u bixisay gabadha gurigeeda habeenkii markay saaxato iyadoo jiifta oo ninkeeda ka kala shaqada ka aado caruurta iskoolka aadi lahaydna ay iska daba wareegaan ilaa maamulkii iyo gurigii iyo shaqadii cid u agaasintay ma jirtee say meelaha isaga daba iskoolka ka daahaan oo iskoolka laga soo eriyo kuwii dugsi aadi lahaana ay dugsigii goor dambe tagaan lugtaag gabadha u bixisay waa gabadha caajiska badan ee aan hurdada ka kicin ee odageedu soo xalba asagoo quraacan ka kalo ilmaheeduna dib jirka noqdaan waxaa lagu yaqaanaa jiifka faraha badan ka sokow dayacaad badan oo guriga ka jirta dayacaad badan oo guriga ka jirta nadaafad xumo shaqo xumo maxaan ku yiraahdaa iyo waxyaabo badan oo qoysaska dhibaato ku ah marka gabadhu inay jiifka badsato iyadoo gurigeedii degan oo hawl u taalo dayacaad baa ka imaanaysa koow ah inay ninkeedii oo gurigan dee u dhistay inuu deganaado kagana badbaado makhaayad iyo qarashkeed uu makhaayad fuulo oo qarashkii koosta kale ku socdo labo in ilmihii lafaca ahaa ay ka hoos maraan ilaa waalidkii wax u diyaarin lahaa agaasimi lahaa wax isugu dubadi lahaa waa jiifaa saddex nadaafad darro iyo jirro guriga ka dhalata sababta guriga haddaan laga shaqaynayn oo gabadhu ay iska caajis tahay maray jiifto iyo mar ay iska dayacan tahay bay tahay nadaafad darraa guriga ka dhalanaysa nadaafad darraduna waxay abuuraysaa xanuunaduna waxay abuurayaan barnaamij culaysyo dhaqaale iyo mid maxaan ku yiraahdaa caafimaad oo qoyska la soo gudboonaada marka ka fogow inaad noqoto lugtaag gabadhu waxay u bixisay lugtaag dabeecadda la yiraahdo waxay rag badan ku khasabtay inay xaasas kala guursadaan iyagoo ka cararaya maxaan ku yiraahdaa caajisiga iyo nadaafad darrada ay kala kulmeen qoyskii ka horeeyay qoyskaas hadda ay dhisayaan si ay ugu badbaadaan u helaan meel ay ku raaxaystaan soo dhaweynaysa sii dhaweynaysa gurigii ilmihiina ka warqabta marka hala iska ilaaliyo ciladaas kale oo la yiraahdo lugtaag oo ay Saare Xuseen ku sheegtay inay kamid tahay ciladaha soo baxa marka qoyska dhaqaalihiisa iyo ciyaalkiisa soo kordhaan oo culays dhaqaale iyo mid bulsho uu la yimaado